waxaynu muuqaalkan yare kooban ku sharxi doonaa ama ku dul istaagi doonaa habdhiska neefsashada iyo sida uu shaqeeyo. Ilaahay subxaana watacaala waxa uu inoogu deeqay habdhisyo kala duwan sida kan dheefshiidka, kan neerfaha iyo haddii uu xukmaayo kanaynu iminka ka hadlayno ee neefsashada. Haddaba habdhiska neefsashadu waa nidaam jidhka u qaabilsan soo gelinta hawada nadiifta ah iyo sidoo kale saaridda hawada wasakhaysan ee carbon dioxide. Habdhiskani waa mid muhiim ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee jidhka ee uu kulmiyo habdhiskani. Waxa uu habdhiskani ka bilaabmaa daldaloolada furan ee ay hawadu jidhka ka soo gasho sida sanka, dhuunta ama hunguriga oo loo yaqaano trachea, sambabada oo qaybo kala duwan oo fara badan leh, taasi oo ay weheliyaan oo ay caawinayaan muruqyada feedhaha amaba diaphragmka, kuwaas oo dhammaantood wada shaqeeya una sahla in la xaqiijiyo in jidhkeenu helo oxygen si loo gaadhsiiyo unugyada kale jidhka ee u baahan ee aan ka maarmin hawadani. Neefsashadan waxay ka bilaabataa marka hawada laga soo nuugo sanka ama afka. Sanku waxa uu leeyahay shaqo ah inuu diiriyo oo haddii uu xukmaayo nadiifiyo hawadii oo ka dhigo mid qoyan. Hawada ka hor inta aanay gelin dhuunta, hawadu waxay sii martaa trachea oo aynu sheegnay ilaa ay ka gaadhayso laamaha ku yaala sambabada ee loo yaqaano bronchiga, kuwaas oo u kala baxa labada sambab ee uu ka kooban yahay sambabkeena ama labada qaybood ee sambabada. Sambabadu waxay leeyihiin sidoo kale qaybo yaryar oo loo yaqaano alveoli. Alveoli waa meel muhiim u ah habdhiska neefsashada. Waa halka la isku dhaafiyo labada hawo ee uu ka dhaco waxa loo yaqaano gaseous exchange-ku ee oxygen-ta haddii uu xukmaayo looga sii gudbiyo jidhka, sidoo kalena carbon dioxide dhiigga laga soo qaaday laga saaro bartaasi. Haddaba diaphragmku ama muruqan muhiimka ahi ee habdhiska neefsashada aadka muhiimka u ahi marka uu kala baxo ee uu haddii uu xukmaayo hoos u dego, waxa uu abuuraa meel bannaan oo hawadu soo gasho, taasoo keentay in hawadu si fudud soo gasho sambabada. Marka uu muruqan istibciyo ee uu relax sameeyo ee uu kor u soo qaado ama qofka sidiisa caadiga ahaa uu yahayna, hawadu waxay ka baxdaa sambabada, taasoo keenta oo fududaysa in carbon dioxide dibadda looga soo saaro jidhka. Sidaa awgeed, habdhiskani neefsashadu wuxuu shaqeeyaa si joogto ah oo aan kala go' lahayn si loo xaqiijiyo nolol caafimaad leh. Unugyada jidhkeenu ay u helaan oxygen-ta ay u baahan yihiin because of unugyo fara badan baan oxygen la-aan noolaan karayn, oo ay ugu muhiimsan tahay maskaxdu oo laga yaabo haddii oxygen ay weydo inay hypoxia ama lack of oxygen ay u dhibato ama ay u dhibaatoodo. Haddii maskaxdu ay shaqada joojisana, unugyo fara badan ayaa shaqada joojinaya. Habdhiska neefsashadu haddaba waxa kale oo la shaqeeyaa habdhisyada kale ee jidhka sida habdhiska wareegga dhiigga ee circulation-ka si oxygen-ta loo gaadhsiiyo dhammaan qaybaha jidhka oo loo soo saaro carbon dioxide. Shaqada habdhiskani waa mid aad iyo aad muhiim u ah nolol maalmeedkeena.